asalaamu calaykum dhammaan ku soo dhowow video cusub haddii aad u malaynayso in helitaanka jinsiyad waddan kasta ay tahay keliya sanido oo aad ku nooshahay iyo waraaqo videogan wuxuu kaa yaabin doonaa dalal qaar xitaa haddii aad sannado badan ku noolaato aad si fiican u barato luqadda aad canshuur bixiso weli ma fududa inaad hesho jinsiyadooda qaar ka mid ah dowladuhu waxay u arkaan jinsiyadda inay tahay mudnaan gaar ah ee ma aha wax si fudud loo helo videogan waxaan ku eegi doonaa 10 waddan oo loo yaqaan inay ka mid yihiin kuwa ugu adag adduunka marka laga hadlayo jinsiyadda iyo sababaha ka dambeeya ka hor inta aanan bilaabin ii sheeg kommentiga haddii lagu siiyo fursad aad ku doorato jinsiyad kasta oo adduunka ah midkee ayaad dooran lahayd maxaase sababay aan bilowno booska 9aad Germany Jarmalka dad badan waxay u maleynayaan in Jarman ay si fudud jinsiyad u siisa laakiin xaqiiqdu waa adag tahay waxaa jira shuruudo la xiriira degnaansho sharci ah luqad dhaqaale iyo ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda inkastoo sharciyada qaarkood la fududeeyay haddana weli waa nidaam adag booska 8aad Singapore waa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha xooggan laakiin sidoo kale waa mid aad u xulasho badan marka la siinayo jinsiyadda dowladda si faahfaahsan uma shaaciso shuruudaha taasoo ka dhigaysa in xataa dadka sannado badan ku nool aan la hubin inay helayaan booska 7aad Saudi Arabia helitaanka jinsiyadda Saudi Arabia ma aha wax caadi ah waxaa jira sharciyo gaar ah oo xadidaya waxaana badanaa la siiyaa kiisaska gaar ah ama dadka leh aqoon iyo xirfad muhiim ah booska 6aad Qatar waa waddan kale oo aad u yar oo xadidan u bixiya jinsiyadda xitaa haddii shuruudo jira dadka hela waa dad aad u yar nidaamkuna waa mid aad u adag booska 5aad Switzerland waa waddan qurux badan laakiin aad u adag marka laga hadlayo jinsiyadda waxaa loo baahan yahay sannado badan oo degnaansho ah barashada luqadaha rasmiga ah iyo muujinta in aad si dhab ah bulshada ula qabsatay xitaa mararka qaar bulshada deegaanka ayaa cod ku leh go'aanka booska 4aad Japan waa waddan leh nidaam adag oo jinsiyadda ah qofka jinsiyadda qaata badanaa waxaa laga doonayaa inuu ka tunaasulo jinsiyadihiisa hore sidoo kale waxaa la eegaa dhaqaalaha anshaxa iyo sannado degnaansho ah booska 6aad Liechtenstein waa waddan yar oo Yurub ah laakiin jinsiyaddiisa waa mid aad u adag in la helo xataa sannado badan kadib ma jirto damaanaad in lagu ogolaan doono booska 2aad Bhutan waa waddan si weyn u ilaaliya dhaqankiisa iyo aqoonsigiisa sidaas darteed jinsiyadda waa mid aad u adag in la helo shuruudahana waa kuwa aad u adag oo faahfaahsan booska 1aad Vatican waa mid gaar ah jinsiyaddeeda laguma helo sida dalalka kale badanaa waxaa la siiyaa dadka ka shaqeeya ama xilalka ku haya ama ka haya gudaha Vatican sida wadaadada iyo shaqaalaha rasmiga ah marka shaqadu dhammaato jinsiyaddu sidoo kale way dhammaan kartaa
sidaas darteed waxaa loo tiriyaa mid ka mid ah jinsiyadaha ugu dhifka badan adduunka. laakiin hal shay muhiim ah ayaan rabaa inaan caddeeyo. marka aan nidhaahdo jinsiyadda adag, micnaheedu ma ahan in ay suurtagal ahayn. dal kasta wuxuu leeyahay sharcidiisa, waxayna isbedeli karaan waqti kadib. sidoo kale qof walba xaaladiisu way ka duwanaan kartaa. ugu dambeyn, jinsiyadu ma aha keliya baasboort, waa aqoonsi, xuquuq, mas'uuliyad iyo la qabsiga bulsho cusub. adiga hadda, wadankee liiskan ku jira ayaa kugu yaabka badnaa? ma jirtaa wadan kale oo aad u malaynayso in uu ka adag yahay kuwani? fikirkaaga ku reeb kommentiga. waxaan jeclahay inaan akhriyo aragtidiina. haddii videogan aad ka hesho ama aad ka heshay, like saar, subscribe samee oo dhaqaaji belka si aad u hesho videoda cusub. waa aniga, ka faa'iidayso. ilaa video kale, nabadgelyo.